السلام عليكم. welcome to CCTV show. maanta ma jiro topic معين oo ka hadlayo laakiin waan shaqeynayay sidaad arkaysaan xafiiskayga baan jooga. So welcome to my office and workplace. qayb gurigayga ka mid weeyaan. halka daaqada waxa idinka muuqda ganjeelkii, so waxa weeyaan dhinacan guriga insha Allah, yani xaafaduna waxa ka kale. So guys, maanta waxaan sugayay customer imanaysa, and then hore waxa dad idinka mid ay ii soo weydiiyeen ACI waxaad noo samaysaa tour oo daawadsii xafiiskaaga. xafiiskayga hore waan idinka sameeyay video yar oo gaaban, waa 2 qol oo iska yar adigu, laakiin ma sha Allah de waxaan ku qabtay igu filan oo iga badan hadda. inkastoo aan idinka sheekeeyay business license-kaygu inuu umbrella yahay, wax fara badan tagaan oo business license-kaygu yahay spa services oo dhan waxa laga qabto, laakiin 3 department baa imika shaqeeya. So inshallah 3 department ku shaqeyno waxay kala yihiin aan ku qabano waa idin la yara wadaagaya, iyo especially sidaan ugu sii diyaar garoobo customerskayga markay imanayaan. iskuma fara badiyo qof marka qofka waxaan jecelahay inaan u qaabilo sidii boqortooyo ma sha Allah, oo qof kasta uu dareemo very special markuu ii imanayo. So inshallah tour yar baan idin siinaya. gabadhay imans waxay u baahnayd oo dhan waan u sii diyaariyay. So come with me ila daawada insha Allah. Okay guys, so xagaas waa halkii aan fadhiyay hadda. badanaa bas kaga shaqaysto, wax ku akhristo, yani programskayga ku soo dejisto, you know, list of to-dos kayga waxayga ka shaqeeyo. halkan daaqad bay iga xigtaa, sida arkaysan dah kumaan xidhi, ma jeclin aan ku xidho, laakiin mid yar oo gaaban oo intaas sare ah insha Allah waan ku xidhi. birtii la gelinayay bahalaha iyo inaan hore ii shaqeynay waardiya iga tuuray. So wali waxaan sugayaa, haddaad yaabtana saasi maxay albaabkii daah iskaga xidhi weyday, wali waxaan raadinayaa birtii, haddii kale waxay noqonaysaa bahalaha bedelo. okay, daaqada iyo albaabkaba. So waan yara carqaladoobay, and okay waxaan sameeyaa guys, and of course xafiiska maalin kasta waan u nadiifnaa, waa la masaxaa, waa la hagaajiyaa, laakiin special extra stuff aan usii sameeyo customerskayga. hawada meesha oo dhan waan sii disinfect gareeya. so hawada oo dhan aad baan uga shaqeeya, weliba gaar ahaan hadda markii karoonuhu jiraan iyo. so this is an air purifier, hawada nadiifinaya weeyaan. ma sha Allah, biyahaygii horaan u soo qaatay. dhinaca kale haddaan idinka imaado xaggan aan fadhiyay. so this is my ring light aan ku duubayay wax. okay, dhinacaasna waxa yaala printerskayga iyo waxaan wax ku dabacayay xafiiskayga ka qaybaha guys. so halkan markaan joogo guys, okay waa ka halkan waxa weeyaan waiting room key. okay, dadku ku sugayn in loo shaqeeyo ama hadday la socdaan qof loo shaqeynaya iska sii fadhiistaan. all right, you know, alaabta qaar Somaliland baan ku samaystay, qaar dibaddan kala imi, decorations oo kale waa dibadda, waxyaabaha kalena halkan aan ku samaystay. so okay, tan waxa weeye strictly intaas way israacsan tahay xafiiska. so sectionkaas waa xafiiskii. okay, so wareeg halkan waa waiting room key. all right, adiga arki doontaane waiting room key. so the first department waxa weeye dhinaca makeupka, and this is it. hello guys, so waxaan sameeyay inanta ii imanaysa, waxaan sameeyay customerskayga waan sii wareystaa, hadday igu cusub yihiin aanay hore iigu iman. inantan oo kale maanta ugu horeysa inay timaado, ya xijaabkan ilaalinaya de guys. wardrobe malfunction baa dhacay doorkii u dambeyso, allahna asturo, waxba halkaa ka yara banaanaaday. waa anigii videogii ka daba imay blur gareeyay, way dhibay, laakiin ciddii aragtay inan baa ii soo sheegtay. aad ba u mahadsantay, ilaahay fi aakhiraha ku siiyo khayr, dembigaagana ha dhaafo. so guys, inantay iman soo kale waa qof kaliya maanta u shaqeynaya. waan sii wareystaa nooca skinkoodu yahay, ma oil skin baa ta ma dry skin, because makeupka loo marinayo anigu qof kasta waxaan u mariya wax maqaarkiisa naasiba. qof waji dry haddii loo mariyo makeup wada qalalan wuu isla sii qalalaya. So
she's dry skin bay igu tiri weeyaan. So waxaan soo qaaday wixii u baahnayd. Inanta markay igu tiri dry skin baan ahay, waan ku soo talagalay guys. dadka qaar baan waxyaabo dheeraad ugu soo talagala. So waxaan ugu soo talagalay saliid aad u fiican oo wajiga marka hore loogu sii dhaashiyo makeupka ka hor oo loogu sameeyo face massage. anigu makeupka qofka intaanan u marinin waxaan u sameeyaa face massage guys. massage fiican oo wajiga kaliya ah ayaan u sameeyaa oo u raacsiisan because wajigii haddaan maqaarkiisi laga sii shaqaynin iyo yani nadaafadiisi makeupku si fiican uma qabanayo. so anigu wajiga waan nadiifiya, waan u maydha wajiga and then waan u masaajeeya, waanan u moisturize gareeya, u dhaashiya, and then kadib wajigiyo diyaaraan wax kasta uu sameeyay ayaan primerkii mariya and then makeupkiina ku xigsiiya. haddaan idinka soo bilaabo baseka, waxyaabihii basku waxa weeyaan waa kan iyo kan oo ah primerskii. 3 foundation baan soo qaado kala midabya ah oo kan waa Chanel, kan waa kii $65 ahaa, kan waxa weeyaan Body Shop, kan waa Kiko. dry skinkii saddexdiiba aad ugu fiican yihiin. so powderskii waan soo qaaday, waa kuwa halkan yaala, iyo bronzerskii, iyo kuwan waa bronzerskii, highlighteradii iyo concealeradii oo laba nooca. lipstickyada waxaan soo qaaday intaasaan soo qaaday si insha Allah wixii ka anfaca ama midabkay ka jeclaato ama dharkeeda ku soo baxaya looga dooro. so waan isku soo dara. waxaan soo qaaday mid liquid matte ah oo ah Estee Lauder matte bay u badan yihiin lipstickyadu, Kiko oo casaan oo matte ah lipstick, iyo mid nude oo matte ah iyadana. kuwan kale oo dhan matte maaha guys. okay, blusheska waxaan soo qaaday 5 nooc baan soo qaaday. soo qaar dhalaal leh iyo qaar matte ah baan soo qaaday. marka inantan oo kale tusaale waxay rabtaa makeupka number 2 yani number 1 iyo 2 iyo 3 bay kala yihiin. marka waa si u kala qaalisan yihiin. so number 2 bay rabtaa. number 2 ga saasan isu soo dhex dhiga alaabta high end ka very expensive iyo kuwa dhexeba. dadka raba ka ugu sareeya number 1 ka waxaan kulli waxay noqonayaan alaabta ugu qaalisan. kana waan soo dhex dhiga, laakiin de kuwan aan aad u qaali ahayn ba aad u tayo fiican yihiin guys. basic dadka raba basicana waxa weeye makeupkooda waa drugstore ka oo isaguba aad u fiican guys, laakiin aan hadda qaali u ahayn. okay, eyeshadowski waxaan soo qaaday 2 palette. tan hore waa wada matte. okay, kalareedeedu waa wada matte. wax kasta oo u baahdo halkan waan ka helay oo matte ah. kana wuxuu isugu jira matte iyo shimmer dhalaal oo ah isaguna aad u qurux badan. labadu waxa weeye Morphe. okay, halkan waxaan soo dhigay lipstickyo inta maakeeda arkaysaan 6 midhi. okay, waa 6 midhi. so 6dani waxa weeyaan kuwii customerska loo marinayay. okay, oo de brush baan ku mariyo, dadka afka ugu ma mariyo. tanna waa 6doodii oo cusub brand new ah oo kuwii iibka ah. 4taas Morphena waa kuwii iibka ah. marka haddii customerska qofkan u shaqaynayo uu jeclaado kalarka loo mariyay oo uu rabo iib ahaan inuu ku qaato, so for example makeupkii baa loo mariyay, lipsticktii qofku uu jeclaaday ma haysto, laakiin lipstickta arooskii iyo wixii arooska ka dambeeyaba waxay rabaan dadkii inay ku ceshadaan. so dadka qaar badan waxay dhahdaan taadii marisay waan jeclaaday iga iibi. so iibkeedana horaan usoo diyaariya just in case. okay, halkan waxay qalimadii kalarka oo dhan, qalimadii wada kalarka ahaa. alright, masha Allah. so hal qof markaan u shaqeynayo waa kaa guys. waxaan soo diyaariyay face wipeski, sanitizerkii gacmaha lagu meedhayay. waxaan soo diyaariyay burushyadii oo dhan oo wada meedhan, wada arkaysaan kullu nadiif. qof loogu shaqeeyo burushyo hore loo soo isticmaalay ma jirto, absolutely not. way wada disinfect garaysan yihiin, wada nadiif. maca makeupka guys waan soo wada nadiifiya. eyeshadowda kale waxaa lagu buufinaya spray alcohol ah oo wada buufinaysa, wadeynaysa yara furnaado, uu qalalaya alcoholkii, uu evaporate garaynaya. makeupkii wuxuu ahaanaya bila germs. waayo dadka indhaha loo marinayo ma ogidin qof indhuhu xanuunayaan iyo qof kale. gloss dhalaalayana waxaan soo qaaday xabadda oo lipstickyada oo dhan raacaysa. okay, so intaas waa inta inanta loogu shaqeynay maasha Allah. khaanadayda bagaashkii kale oo dhan baa iigu jira, yani wixii yaryaraana rabin inaan halkan soo dhigaan inta qurux badan lahayn.
eyelasheski xabagtii lagu marsanayay spraygii wejiga vaseline ciduu baahan waxyaabo yaryaroo dheeraada ayaa ku jira. qolkan kale waxa weeyaan qolka aan ku sameyno facialska weji dhaqida iyo massageka guys. Okay, so halkan aan ku sameyno haddii qofku appointment leeyahay wejiga loo meedhayo iyo haddii massage loo sameynayaba wasaliidihii alaabtii facialska. tani waa face steamerkii halkan yaala. Okay, so halkan waxa weeye qol shaqo. halkan waxaan ku gurnaa go-yaasha iyo tuwaalada la isticmaalay ee meedhis u soo baahan. Okay guys, so masha Allah dee waa labada qol gurigeyga dhexdiisa aan ka gooyay bilaa buuqa ah. Alright, masha Allah tabaarakallah dadkan ugu shaqeeyo reerkayga iyo carruurtayda iyo ag joogaan oo ka ogahay. dawaka masha Allah maanta videoga kaasan idin soo deynaya. anigu ma jecli inaan sawiro hablaha aan u shaqeynayo makeup u marinaya because de ilaahay hortiisa anigu ma qaadi karo dambi. kaygii baan ka baqanayay anigu marka makeupka sameynayay baan ka baqay mise waaba qof kale soo bandhig. marka sorry ma sameyn karayo. haddaynaantu xijaab xiran tahay oo iga ogolaato before and after wejigeedoo kaliya inaan sawiro markii hore intaan loo bilaabanayo markii dambe hadday iga ogolaato videoga xagga dambe aan soo raacin. haddii inaantu inkastoo igu tiri coofeer baan ka imanaya timaha horta loo soo dhisayay marka haddii timihii qaawan yihiin sorry guys ma soo dhigi karayo. so masha Allah wata meesheeda yara shaqadu alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay noo barakeeyo. then that's it guys. xoogaa weli decorations iyo waxbaa ii harharin maan dhammayn. taas dhulka taaloo dhan waa in halkaa la suro halkaas ay rabta la suro. halka waa inaan daahu keeno waxaan rabaa daah shabag oo qurux badan oo caddaana. daaqadana mid yaroo gaabanoono intaas ra uuna because ma raba inaan qariyo. maalintii dabaddu aad bay u qurux badantoo dhir iyo flowers iyo waxbaa ku jira dabadda ku beeran oo aad bay u qurux badantay. anigu halkan markaan fadhiyaan ka shaqaysanayo waan jecelay gurigii halka inaan ka eego iyo ciyaalkii oo beerta dhex yaacaya iyo so ma raba inaan iska awoodo daaqadda insha Allah. so waa kaa guys. yeah, welcome to all of you. aad baad wad mahadsantihiin daawasho fiican. okay guys, waxaan ka yara dabageynayaan ilaabay leerarkii. so dadku markay badanaaba noo yimaadaan weliba dadka makeupka loo sameeyo waxay jecel yihiin inay sawir iska qaadaan. marka leerarka waxaan ku soo xiray kan waa kii dhexe laakiin kuwa waaweynaana waa ku yaalin flashlightskii koonayaashoo dhan way ku yaalin. so eesina waa jira. so markuu kulayluhoo kale habluhu saana iigu dhalaalin makeupka uga dhalaalin eesi waa kusoo xiray meesha qaboojiya qaboobaha looma baahnaa. so guys koonayaashoo dhan flashlightska way ku yaalin oo de aada cad ood arkaysaan. masha Allah dresserkii wuxuu leeyahay leerar kulli markaa masha Allah sawirada qurux bay usoo baxaan. so intaasaan ka dabageynaya guys. very nice, thank you. waad mahadsantihiin all of you.